dalka Afghanistan waxa uu hoy u noqday dagaalo fara badan oo dhamaad lahayn. Waxa uu noqday dhulkii madaafiicda iyo leynta dhalaanka burburinta shacabka. Afghanistan waqti ay taariikhdu ahayd 15 May 1988 waxaa ka baxay ciidamadii ugu dambeeyay ee Soviyetka. waxa ay u maleynayeen shacabka reer Afghanistan inuu u bilowday waa cusub, laakiinse ma aysan ogeyn inuu u bilowday hoog iyo balanbal dagaal aan dad iyo dunyo midna reebeynin. shacabka Afghanistan waqti badan ay la daalaa-dhacayeen dagaalo fara badan iyo darxumo. waxaa bilowday iskhilaafkii hogaamiyaashii dowladda, waxaana abuurmay koox diimeed fara badan. waxa ay rajeynayeen bixitaanka Soviyetka in ay bilaabi doonaan nolol qurux badan, laakiinse nasiib darro taasi ma aysan suurtagelin. waxa ay cagta saareen wadadii hoogga iyo halaaga. Mareykanku waxa uu ku soo qaaday Afghanistan dagaal qaawan kaas oo waxba la iskula harin, isaga oo ku andacoonaya baabiinta Al-Qaacida. waxa uuna sheegay in ay ka dambeeyeen duqeyntii daarihiisa. Al-Qaacida waxay xarumo ku lahayd Afghanistan, waxa ayna ku raad joogeen Usaama bin Laden. hadafka Mareykanku waxa uu ahaa qabsashada Afghanistan, dhulka istiraatiijiga ahaa, ka xoreynta ururka Taliban, dhisidda dawlad iyaga adeecda, dabadhilifna u ahaata. hadafka waa ay ku hongoobeen, waxa uuna noqday hal bacaad lagu lisay habaa'an mansuura. waxaa ka dhex qarxay Afghanistan xisbiye islaamiya kuwaasoo isku khilaafsan siyaasadda iyo qaabka loo maamuliyo dowladda. waxa ay ka kala helayeen taageero dowlado kala duwan. waxaa ka mid ahaa xisbiyada ururka Taliban, kuwaasoo awood u yeeshay in ay waddankoo dhan qabsadaan. xisbiyadii ka soo horjeeday ururka Taliban ayaa waxay ku midoobeen in ay ka saaraan gacanta dowladda Taliban. waqtiga waxa ay taageero ka helisay Pakistan, iyada oo hiil iyo hooba la garab taagan waxa ay uga baahdaan hub iyo lacag. Mareykanka laftiisu waxa uu taageero siinayay ururka Taliban, laakiinse ma uusan ogeyn in ay ku noqon doonaan laf dhuungashay. Taliban inta ugu badnayd waxa ay gacanta ku dhigtay dhulweynihii Afghanistan, waxaana ictiraafay Sacuudiga, Imaaraadka iyo Pakistan. waxa ayna halkaa ka dhiseen dowlad islaamiya. waxa ay cilaaqaad wanaagsan la yeelatay Mareykanka iyo dowladihii kale ictiraafsanaa, laakiinse waxaa soo dhex galay khilaaf Mareykanka iyo Taliban. Mareykanku waxa uu isku dayay in uu cunaqabatayn saaro, isagoo oo rabay in uu awoodooda hoos u dhigo. halkaas isla waqtiga waxaa ka jirtay ururka Al-Qaacida. Mareykanku waxa uu gacan saar la yeeshay xisbiyadii ka soo horjeeday ururka Taliban. waxaa adkaatay noloshii shacabka, waxaana ku adkaatay cunaqabatayntii la saaray. waxa ay bilaabeen Taliban in ay Mareykanka dhexdiisa ka bilaabaan qaraxyo isxiixiga, weliba maalmo isxiixiga, iyaga oo ka aargoosanaya Mareykanka sababta uu u saaray cunaqabataynta awgeed. waxaa dhacday duqeyntii 11 Sebtembar 2001, taariikhii ugu dhaadheeraa ee Mareykanka, kuwaasoo ahaa daaraha ugu waaweyn ee dhaqaalaha adduunka. waxaa halkaa ku burburay dhaqaalihii Mareykanka, waxaana ku naf waayey 3,000 oo Mareykana, halka ay ku dhaawacmeen 25,000 oo qof. waxa uu ku sheegay Mareykanku weerarkaas midkii ugu weynaa ee koox argixisa ay fuliso Mareykanka dhexdiisa. waqtiga madaxweynihii Mareykanka George W. Bush ayaa si degdeg uga codsaday ururka Taliban in si degdeg loogu soo wareejiyo hogaamiyihii Al-Qaacida
Usaama Bilaadi hogaamiyihii Taliban iyo Mullah Cumar waxa uu ugu jawaabay Mareykanka in aysan soo bandhigin wax cadayna in ururka Al-Qaacida ay ka dambeeyeen weeraradaas, iska daa in lagu wareejiyo hogaamiye in hal qof xitaa aysan ku wareejinayn Mareykanka. Mareykanku waxa uu bilaabay in uu duulaan ku soo qaado Afghanistan isagoo oo kaashanaya ururka NATO. Waxa ayna duqeynayeen meel kasta oo ay xarun ku leedahay Al-Qaacida. meel kasta oo Mareykanku duqeeyo waxa iyana gudaha u soo geliyay xisbiyadii ka soo horjeeday ururka Taliban, kuwaas oo fursad u arkayay duqeynta. Waxa waddanka oo dhan ku faafay xisbiyadii mucaaridka ahaa, sidaana waxaa laga saaray Taliban qacan ku hayntii dawladda. Taliban waa laga xoog roonaaday maadaama gudaha iyo dibadba laga soo weeraray. Waxa ay u kala baxsadeen dalka Pakistan. Pakistan waxay noqotay hoyga ay u soo yaacaan hogaamiyaashii Taliban. Taliban ma aysan isdhiibin, waxa ay bilowday in ay waddanka dhexdeeda ka fuliso weeraro isdaba jooga, qaraxyo fara badan. Waxa ay kala kulmeen Mareykanka iyo ururka NATO dhibaato aad u fara badan, waxayna u diideen Mareykanka iyo NATO jiif iyo joog had iyo habeenba.